Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharada ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waa conversation about living in a dormitory ama waxa uu ku saabsan yahay laba qof oo ka wada hadlaysa habka nolosha college-ka ama in lagu noolaado college-ka meelaha ardayda ay ku nool yihiin isla markaasna ay wax ka bartaan. Marka casharka sidoo kale waxa uu ka hadlayaa laba qof oo arday ah oo ka wada hadlaysa ku noolaanshaha college-ka iyo nolosha guud ee ardayda iyo ururada laga mid noqdo ee ardayda. Marka casharka laba qof ayaa wada hadlaysa marka wuxuu ku bilaabanayaa sida tan ayaa hadalka bilaabay oo wuxuu yiri hey John hey waxaan dhahnay waa sida hi hello iyo wixii lamid ah intoodaba waa isku mid marka waxay lamid tahay waa salaanta luqadda Ingiriisiga mid ka mid ah how are you doing waxa la yiraahdaa how are you doing sidee tahay ayaa loola jeedaa waxay ka mid tahay nooc ka mid ah qaabka waxa loogu weydiiyo qofka xaaladiisa luqadda Ingiriisiga marka how are you doing waxa loola jeedaa sidee tahay marka I am doing great waan fiicanahay I am doing great waan fiicanahay how about you adiga dhankaada ka waran aniga waan fiicanahay adiga dhankaada ka waran how about you waxa inta badan loo isticmaalaa adiga dhankaada ka waran adiga sidee tahay me too anigana sidoo kale me too waxa loola jeedaa anigana sidoo kale waan fiicanahay ayaa intaas loola jeedaa I just finished moving into the dormitory it seems right I just finished hadda waxa ii dhamaaday soo guuritaankii college-ka ayaa loola jeedaa I just finished moving into the dormitory waxa hadda ii dhamaaday inaan u soo guuro dormitory-ga ama college-ka waxaan ula jeednaa goobta uu ardayga uu seexdo isla markaasna uu ku cunteeyo oo uuna wax ka barto marka yacni waxaa iskugu jirta goobta waxa iskugu jirta waxbarasho iyo cuntadii iyo jiifkii marka boarding school oo kale ayaa loola jeedaa laakiin hadda waa college-ka marka waa college-ka laakiin iskuuladana way leeyihiin marka iskuulada qaarna way leeyihiin marka hadda sidaas ayaa loola jeedaa marka dormitory it seems right waxay u muuqataa ayuu leeyahay marka mid hagaagsan ama mid wanaagsan ayay u muuqataa marka maantan Soomaaliga waxay noqonaysaa hadal qabsi kaliya marka wax sidaas weyn ah macna goona ma sameynayso laakiin waa hadal qabsi kaliya man you should have joined a fraternity waxay ahayd inaad ku soo biirto ururka ardayda ee wiilasha erigan fraternity waxa la yiraahdaa ururka ardayda ee wiilasha ayaa la yiraahdaa marka you are in a fraternity maad waxaad ka mid tahay fraternity ayaa miyaad ku jirtaa ama ururka wiilasha miyaad ka mid tahay haddii aad ku jirtana wuxuu yidhi which one keebaad ka tirsan tahay marka you are in ma waxaad ka mid tahay fraternity erigan waxa lagu dhawaaqaa fraternity marka ma waxaad ku jirtaa fraternity haddii aad ku jirtana waxa ula jeedaa which one keebaad ku jirtaa marka I am with ani waxaan ka mid ahay delta to delta ururka la yiraahdo kaliya waa magac inta ayaan ka mid ahay it is going to be so much fun waxaana lagu wadaa inuu noqdo madadaalo badan marka ama mad laga helo ama mad leh madadaalo badan ayaa loola jeedaa it is going to be waxa lagu wadaa inuu noqdo marka ururkaas uu ku jiro ayuu ula jeedaa waxaa lagu wadaa inuu noqdo so much fun mad madadaalo buuxda leh ama mad madadaalo badan leh ama mad madadaalo badan laga helo how much does it cost imise ayay qiimuhu yahay marka imise ayay tahay in laga mid noqdo ayaa loola jeedaa hadda how much does it cost imise ayay qiimuhu yahay marka in laga mid noqdo ururka ayaa loola jeedaa marka I have to pay waa inaan bixiyaa $475 a month USA dollars a month I have to pay $475 US a month
marka wuxuu leeyahay waa inaan bixiyaa I have to pay waxa loo jeedaa hadda waa inaan bixiyaa ereyga to pay waxaa la yidhahdaa bixinta lacagaha iyo qarashaadka iyo wixii aad wax ku gadanayso ama wixii kaa baxaya ayaa la yidhahdaa. It comes with 2 meals a day thought waxaa soo raacaya marka ururkan kamid noqoshadiisa waxaa soo raacaya ayuu leeyahay 2 waqti oo cunto ah ayaa soo raacaysa marka it comes with 2 meals a day thought waxaa la jira 2 waqti oo cunto ah ereyga meals waxa loo 2 meals a day waxa loo jeedaa waa cuntada baseelka ah ama cuntada karsan ama cuntada laga cunteeyo la cuno ayaa loo jeedaa marka oo cunto marka it comes with 2 meals a day thought marka waxaa soo raacaysa 2 waqti oo cunto ah ayaa soo raacaysa kamid noqoshada ururka dam ereyga damna waa asigan waa halqabsi marka sida aan soo sheegnay oo kale asigan waa halqabsi laakiin wixii aad la yaabto ayaa loo isticmaalaa ereyga dam waxaa la yidhahdaa marka asigan waa wixii adiga aad la yaabto ama kaab kugu noqda ayaa loo isticmaalaa marka that is the same price I am paying for the dormitory kaasi marka wuxuu la mid yahay that is taasi lacagtaas aad soo sheegtay the same price waa isla qiimaha I am paying aniga aan ku bixiyo for the dormitory aan ku bixiyo dormitoryga ama goobta college-ka aan deganahay. How often do they take new members? Marka wuxuu weydiiyey how often do they take new members? Ilaa iyo ama qaab noocee ah ama xilligee had iyo jeer ay dad ay qaataan had iyo jeer goormee ayay dad qaataan ama goorme ayay members ereyga members waxa la yidhahdaa dadka ka mid noqonaya ururka ayaa la yidhahdaa marka how often waxaa loola jeedaa had iyo jeer goormee ama had iyo jeer xilliyadee ayay do they take iyagu dadka ay qaataan ama ay qaataan new members dad cusub ama dad ka mid noqonaya oo cusub goormee ayay qaataan marka every semester waliba waxay qaataan dad ayay qaataan when they start recruiting marka ay bilaabaan inay dad ay qaataan ereyga recruiting waxaa la yidhaha marka waa dad qaadasho markii qolo koox ama group qof ay ku soo biirinayso ayaa loo isticmaalaa recruiting sidoo kale waxaa noqon karaa qof markii la shaqaalaysiinaya oo shaqada goobta shaqada qof lagu soo biirinaya way noqon kartaa marka ereygan waa sideedaba wax ku soo biirin ama wax ku soo diris ama wax qaadasho ayaa loo isticmaalaa marka when they start recruiting marka ay bilaabaan dad qaadashada I will be sure to let you know waxaan marka xaqiijinayaa inaad marka adiga aan kula soo socodsiiyo ay noqonaysaa Soomaali I will be sure to let you know waxaan xaqiijinayaa in aad adiga aan kula soo socodsiiyo ayaa loola jeeda hadda that would be great taasi waxay noqon doontaa mid heer sare camalka waa hagaag halkan waxaan ku haysanaa qaar ka mid ah ereyadii ugu muhiimsanaa casharka ku jiray ereyo badan ayaa ku jiray laakiin waxaan soo xulay ereyadii aan islahaa waa kuwa maaragtay ugu muhiimsan marka ereyga ugu horeeya waa dormitory waxaa dhahnay waa college-ka ama meesha ardayda lagu xareeyo ee guryaha marka waa guri marka ardayda ay leeyihiin ama waxa iskale ardayda college-ka ayaa iskale laakiin ardayda ayaa laga ijaaraa marka dormitory ayaa la yidhahdaa moving waxaa loola jeeda marka ama to move ayaa ereyga asalkiisa uu ka yimid marka ereyga to move waxa weeye waa guurisi marka waa markuu qof meel ka guurayo uu meel kale u guurayo ayaa loola jeedaa fraternity waxaa la yidhahdaa marka fraternity waxaa la yidhahdaa ururka ardayda gaar ahaan ururka ardayda wiilasha ah marka ereygan badna Mareykanka ayaa laga isticmaalaa fraternity laakiin ereyga guud ahaan fraternity markii laga hadlayo waa fraternity waxaa loola jeedaa waa urur sidiisaba waa urur laakiin ururkaas oo leh hal mowqif iyo hal ujeedo iyo hal interest marka
ayaa loo isticmaalaa laakiin hadda waxay u jirtaa ururka wiilasha ayay u jirtaa meals waxa dhahnay cuntada karsan cuntada baseelka ah ereyga price waxa dhahnay waa qiimaha uu shay joogo paying ereyga paying waxa dhahnay waa bixin ama lacagta la bixinayo equity waxa dhahnay waa qaadasho ama maaragtay dad shaqaalaysiin ama dad kusoo biirin urur intaba waa loo isticmaali karaa marka casharkii halkaas ayuu ku egyahay halkaas ayaa marka uu noogu dhammaaday fadlan haddii aadan subscribe lahayn taabo calaamadda subscribe-ka ah sidoo kale gambaleelka ku dhufo si uu kugu soo dhaco casharkii ugu dambeeyey aan soo gelino wixii kale iyo tusaale ahna waxaad ugu soo bixin kartaa commentiga qaybta hoose insha allah intaa muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo